gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir arrimaha bulshada iyo wacyigelinta culimada Soomaaliyeed agaasinka waxbarashada gudoomiyaasha degmooyinka qeybaha kala duwan ee ururada bulshada iyo dhammaan bahda waxbarashada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan halkan u joognaa inaan ku soo bandhigno natiijada imtixaanaadka fasalka 8aad oo maamulka gobolka Banaadir uu qaadayo sanadkii 3aad. maamulka gobolka Banaadir agaasinka waxbarashada waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah in maanta oo ku beegan khamiis 28 Luulyo sanadka 2022 uu soo bandhigo natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2021-2022. tirada imtixaanka sanadkan u fadhiisatay waxay gaarayaan 26,860 arday oo ku galay 71 xarumood ee degmooyinka gobolka Banaadir. wadarta guud ee dugsiyada ee gobolka Banaadir waa 637 iyadoona imtixaanka fasalka 8aad ay galeen dugsiyo gaaraya 590 dugsi. waxaanu ku dhawaaqaynaa natiijada guud ee ardayda fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022 waxaa gudubtay 24,443 arday taasoo ka dhigan 91%. waxaa haray 2,417 oo ka dhigan 9%. wadarta guudna waxay ahayd 26,860 arday. isbarbardhigga natiijada gabdhaha iyo wiilasha fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022 natiijada gabdhaha gudbay waxay gaarayaan 10,760 taasoo ka dhigan 40%. waxaana haray 981 taasoo ka dhigan 4%, iyadoona wadarta guud ee gabdhaha ay gaarayeen 11,741. wiilasha gudbay sanadkan waxay gaarayaan 13,683 taasoo ka dhigan 51%. waxaana haray 1,436 taasoo ka dhigan 5%, iyadoona wadarta guud ee wiilasha ay yihiin 15,119. dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa imtixaanaadkan lagu qaaday oo dugsiyada ay ku yaalaan, waxaana 5 dugsi ama 5 degmo ee ugu waxbarashada fiican sanadkan galay degmooyinka kale ah Hiliwaa, Dharkenley, Warta Nabadda, Hodan iyo Kaxda. sidoo kale iskuulaadka ee sanadkan imtixaanka fasalka 8aad u fadhiistay waxay gaarayaan 590, waxaana 10 iskuul ee ugu sareysa galay dugsiga Subayr, dugsiga SOS, dugsiga Mucaasir Saynis, dugsiga SYL Cemis, dugsiga Moonlight Hiliwaa, dugsiga Gire, dugsiga City, dugsiga Al-Khayraat Gubadley, dugsiga Ablaal Hiliwaa, dugsiga Macalin Cadow, dugsiga Umul Qura iyo dugsiga Maxamuud Xarb. markan waxaan ku dhawaaqaynaa 10 kaalimood ee ugu sareysa ardayda gashay guud ahaan. waxaa ugu horeeya roll numberka ardayda wata ee ah B 22,119 magaciisuna yahay Maxamed Cabdulaahi Cabdi Cismaan ee dhigta dugsiga Imaam Shaafici kilomitir 16 oo isku celcelis ahaan keenay 97.3%, gradekiisuna uu yahay A. roll number B 22,312 magaciisuna yahay Xasan Cabdi Sheekh Doon Cismaan ee dhigta dugsiga Macalin Cadow Ceelasha, wuxuu keenay 95.7%, gradekiisuna waa A. roll number B 22,452 magaciisuna yahay Maxamed Ciise Daahir Yuusuf ee dhigta dugsiga Xasan Khariidi, wuxuu keenay 95.3%, gradekiisuna uu yahay A. roll number B 22,299 gabadha lagu magacaabo Faaduma Cismaan Axmed Warsame ee dhigata
iskuulka imaam maalik waxay keentay 93.9 boqolkiiba gareedkeeduna uu yahay A. roll number B 22 wiilka lagu magacaabo cabdicasiis maxamed ibraahim cali ee dhigta dugsiga amiir nuur wuxuu keenay 93.6 boqolkiiba gareedkiisuna uu yahay A. roll number B ayaa sidoo kale kaalintaasi shanaad la galay oo ah roll number B 22 wiilka lagu magacaabo cumar cabdulqaadir ismaaciil cabdi ee dhigta dugsiga imaamu shaafici hodan wuxuu keenay asigana 93.6 boqolkiiba grade A. kaalinta lixaad waxaa galay roolka number uu yahay B 22 cabdiraxmaan cali yuusuf geysey oo dhigta iskuulka almarwaasi wuxuu keenay 93.4 boqolkiiba gareedkiisuna waa A. roll number B 22 cabdullaahi cali axmed sahal ee dhigta dugsiga al asaas wuxuu keenay 93.3 boqolkiiba gareedkiisuna uu yahay A. roll number B 22 ruwayda maxamuud aadan maxamed ee dhigata dugsiga giire waxay keentay 93.3 boqolkiiba oo gareedkeedu yahay A. iyada iyo cabdullaahi waxay isla galeen kaalinta toddobaad. sidoo kale kaalinta toddobaad waxaa iyadana isla dadkan ku bareejeysay ama la gashay roll numberka B 22 gabadha lagu magacaabo sundus cusmaan cabdi xasan ee dhigata dugsiga giire oo iyaduna keentay 93.3 boqolkiiba gareedkeeduna yahay A. kaalinta sideedaad roll number B 22 hudda saalax sheekh ibraahim ee dhigata dugsiga mucaasir waxay keentay 93.1 boqolkiiba gareedkeeduna yahay A. waxaa sidoo kale kaalinta sideedaad la galay roll number B 22 maxamed aweys cabdulqaadir aadan oo dhigta dugsiga imaamu shaafici kilomitr 16 wuxuu keenay 93.1 boqolkiiba gareedkiisuna uu yahay A. kaalinta sagaalaad roll number B 22 cabdullaahi cabdirasaaq maxamed jaamac oo dhigta dugsiga SOS wuxuu keenay 93.0 boqolkiiba gareedkiisuna uu yahay A. kaalinta tobanaad ee u dambeeya roll number B 22 cabdicasiis mahad axmed siyaad ee dhigta dugsiga qusayma steme international wuxuu keenay 92.6 boqolkiiba gareedkiisuna uu yahay A. agaasinka wuxuu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa 10 arday ee kaalimaha hore galay. agaasinku wuxuu ugu mahadcelinayaa dhammaan inta gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ugu horeeyaan madaxda maamulka gobolka banaadir, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, kormeerayaasha hay-adaha amniga, macallimiinta, waalidiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada. mahadsanidin.